wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Yurub Abiib Cabdi ayaa maanta kormeer ku tagtay degmada War-Idaad ee ka tirsan gobolka Saraar halkaasi oo dhawaan laga hirgeliyay xarun cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Saraar. xaruntani oo ay ka shaqeeyaan tiimam wareega oo ka shaqeeya daaweynta xoolaha ayaa waxa wasiirka warbixin ka siiyay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Saraar Dr. Ibrahim Axmed Salmaan iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi. halkan waa xaruntii War-Idaad weeyaan, waa halka shaqaaluhu mobile teamkuna ay degan yihiin ay ka duulaan oo ay ka shaqeeyaan. dhulkani wasiir waa dhulkii xoolaha ugu badan ay joogaan jiidahani, waana subax kasta oo halka laga howlgalo, waana tiimku halkuu ka shaqeeyo weeyaan. xaruntani waxaa inoo dayactirtay hay'adda la yiraahdo Save Children. insha Allah inaguna waxaan ku sii darsan doonaa, waana meesha kaliya ugu imka aynu dooranay berigii in laga dhiso weeyaan xoolaha 2018 degmada War-Idaad oo ah degmada kala badha Somaliland oo xagga hoodana ku ah xagga xoolaha, waana meelaha ugu xoolaha badan dhulka Somaliland ee halkan jooga. marka ku soo dhawaad waxaan ku joognaa waa tiimkii War-Idaad ee joogay hawsha u joogay shaqada. Allah mahadle aad baan u wanaagsanahay. xaruntu waa xarunta aad aragtaan ee saa u quruxda badan leh. hal xooluhuna aad ayay meesha ay u degan yihiin ama ugu badan yihiin. si fiican ayay u socotaa dawadu xagga wasaaradda marka loo eego dawadii way taalaa. waxaa kaliya oo aan halkan ka yar ugu yar adag xagga biyaha iyo guri dee ama meeshu waa yar qol laba qolo alaabta. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Yurub Abiib Cabdi iyo injineer Mustafa Cali Guureed oo ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha, waxayna faahfaahin ka bixiyeen kormeero kala duwan ay ku marayaan qaar ka mid ah gobolada bariga Somaliland. waxaan ku sugannahay bartamiga Somaliland, xuduntii Somaliland War-Idaad, degmada War-Idaad. degmada kolley dadkeena waxaan moodaa inay xagga waxqabadka ama danta guud aanay ku baraarugsanayn. markaa kale waxaan u soo jeedin lahaa dayna hay'ad iyo dawladuun eegni waxaan degmadu wixii kale ku dari karto sida meel shaqaaluhu seexdaan haddii qol yar oo kale ama laba qol ku dari karaan oo wax yar fudud kolley qiimihiisa ma badnaanayo oo way samaysan karaan. insha Allah taala wasaaraduna waxay la qaban kartaa insha Allah way la qaban doontaa. sidoo kale meesha waxaan soo jeedin lahaa ka engineer ahaan inaad meesha qurxisaan oo kole dhir lagu beero. dhulkan kolley seen aragna waa dhul banaana. alxamdulilah halkan joogna waa War-Idaad sida la sheegay waxa weeyaan bartamihii Somaliland ayaynu taaganahay. halkan waxaanu nimi oo aan dhagax dhignay 2018 run ahaantii maalintii halkan aan aymi oo xanaanada xoolaha ka socdo dhagax dhigay halkan. maalinta deemay jirin dhismahan iyo maxaa la yiraahdaa imanka geedkan aynu dhex taaganahay yaanu ahaanin badayraha ahaado laakiin shabak fiican iyo silig ay ku wareejiyeen. laakiin waxa ka muuqata astaan imanka waxqabad hadhna way leedahay. gaari ay siiyeen hay'addu ay bixiso fiicanna way taagan yahay. insha Allah kul adduunyadu waa iska dhinaashiyo weeyaan oo adduunka inta la joogo wuxuu baa dhiman. laakiin anaguna ka wasaarad ahaan xukuumad ahaan waxaan ka dadaalay insha Allah inay qolka ay ka cawdeen yiraahdeen meel aan saaxanaan haysan tiimamkayga halkan jooga oo halkan dawadii baa noo taalo meel aan istaagna malaya galaaseerkii qaboojiya dawada ay ku qaboojinayeen. insha Allah anaguna wixii karaankayaga aan kari karno kolleyba nin qoyan biyaas kama dhowro qofna dalkiisa iyo dadkiisa waxba kama hakrado. waa waxay wasaaraddu ay u taagan tahay xukuumadda mas'uulka uga tahay inay baahiyaheeda ay hoos u eegto. insha Allah waan isku noqon wixii aan kari karno anaguna waanu ka qayb qaadan doonaa haddii alla yiraahdo. idinkana deegaan ahaan iyo suduw ahaan iyo dad balaadhan xoolo balaadhan haba yaraadaan imika xoolo iyo haddana shaqo fiican baa ka socota. Salmaan Cilmi Siciid, Salmaan Kiko, telefishinka caalamiga Ariel, degmada War-Idaad, gobolka Saraar.